waxaa maanta si rasmi ah u bilowday ololaha xisbiyada qaranka ee doorashooyinka isku sidkan oo ugu horeeya xisbiga wicid labada musharax isku sidkan ee ka sharaxan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ee kala ah Ibraahim Xisi oo u sharaxan golaha wakiilada iyo weliba Cabdiweli Daahir oo ka sharaxan golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa kula hadlay taageerayaashooda xafiisyada ku yaala magaalada Laascaanood qaarkood halkan ku muujinayaan shucuurtooda iyo macnaha iyo taageerada u muujinayaan labada xildhibaan iyo xisbiga cudba aad iyo aad bayaguna u mahadsan waa soo dhaweynana gaar ahaan xafiisku wuxuu ku yaala gosha aalam taraasa haran meesha xilkiinu yaal inaanu u ololaha iyaga xisbiga iyaga ololihiisa maalintii koowaad aanu ololeyno annaga iyo taageerayaashayadaba sidaas ayaan iskugu soo baxnay magaalada halkan waa xafiiska iyaga Royal waxaanu nahay laba musharax oo ka sharaxan gobolka Sool iyo degmada Laascaanood oo isku sidkan xafiisyada ayaanu ka bilownay maanta annagu haddaanu nahay ucud maanta codaynta in aad yacnaha labada astaamood ee xisaabta iyo geriga oo aad yacnaha geriga la eegataan oo wakiilada ah barkhad Cumar Axmed warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya